mudane gudoomiye hadda waxaa fadhiya 37 mudane ku soo dhaweynaya si ay ugu fitaho maadka miisaaniyaddii waa maalintii ugu dambeysay oo aynu haysanay waqti because berito bishu waa 1 abriil waxaana rabaa dalku inuu miisaaniyad leeyahay marka shalay waxaan u yeedhnay wasaaraddii raggu wixii uu dee su-aalo qabay iyo wixii uu xoqayeyba way su-aaleen waqti badanna waynu wada qaadanay shaqadaas shaqo fiican bay ahayd oo dee aada loogu mahadsanaa mas-uuliyaddiinnii saaka wasaaraddiina lama joogto waa innaga inaynu go-aan ka gaadhno waa la rabaa haddii marka ay jirto cid dood weli qabta amba diyaar oo ah arrintaa inay ka hadasho waxa weeye waa diyaar gacantayna taagaysaa waana la qorayaa haddii aanay jirin cid dood qabtaana cod ayaynu gelin doonaa haddii alla yidhaahdo marka mudanayaal idinkoo sharfan hadday jirto qof dood qaba ama rag dood qaba oo raba in dood la furo diyaar weeye waana la qorayaa gacantay taagayaan haddii aanay jirin waxa weeye cod baynu gelin doonaa haddii alla yidhaahdo axmedow marka qor insha allah waa warka rag mudanayaashu gacantay taageen dooddaasaynu geli doonaa kadibna marka waxaa la doonayaa waddankuna inuu shaqeeyo miisaaniyadna helo waxaan rabnaa miisaaniyaddaasi inay shaqayso wasiirku waxbuu ballan qaaday wuxuu yidhi 9 bilood ilaa sagaalaad ha lay siiyo anugu waxaan qabaa in la siiyo oo uu shaqeeyo miisaaniyadda waddanku ay shaqayso hadda haddaynu yidhaahno ha la celiyo waa bil baynu sharci u leenahay nin 3 bilood wax ku soo qaban waayey bil waxba ku soo qaban karo marka ha la siiyo baan leeyahay waqtigaas hana lifaaqna ha la raaciyo wixii la diidan yahay miisaaniyadda madax baa maaragtay goluhu leeyahay miisaaniyaddaasna waxaa wakiil ka ah guddoomiyaha iyo shaqaalaha baarlamaanka puntland marka su-aasheedu waxay tahay miisaaniyadda waxaa baarlamaanka ugu qoran $195,000 inuu yahay qarashka maaragtay baarlamaanka mushaarka iyo gunooyinka baarlamaankana waa 95,000 waxaan jeclaan lahaa waan weydiinayaa guddoomiyaha inuu noo faahfaahiyo madaxa ku jidha miisaaniyadda ee baarlamaanka inuu faahfaahin naga siiyo waa qodob ka labaad waxa weeye waxaa ku qoran shaqaalaha baarlamaanku inuu yahay 110 iyo wax dheer muddadii anugu halkaana hadda xildhibaan ka ahaana shaqaalahan arkay waa int kooban raggaas odayaasha oo hadda horteeda fadhiya oo ugu weeyahay Dr. Maxamed iyo ciidana iridda maarta ku soo dhaafo waxaan rabnaa haddii ay shaqaalahaasi yihiin shaqaale baarlamaanka u shaqeeya oo anagu aan shaqaalahayaga ay yihiin hadda waxay xaq u leeyahay inaan dadka ka baranno inaan aqaan inaan wada shaqeyno waxaan guddoomiyaha ka rabnaa 100 iyo xogaagaas qof in ay baarlamaanka hor yimaadaan oo ay hortayada ka muuqdaan lacagta mushaarka oo 95 maahay 100 kalena waxaan rabnaa inuu guddoomiyuhu faahfaahin naga siiyo si aan wax badan uga ogaano maxaa yeelay shilin kasta oo dalka soo gelaya baarlamaanku uu xaq u leeyahay halkuu ku baxayo iyo halka soo gelaya inuu ogaado marka anu su-aasheedu labadaas ku saabsan tahay waana mahadsantihiin salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu shalay waynu ogeyn wasaaraddii baynu u yeedhnay haddii wasaaraddii u yeedhnayna wasaaraddii waa la waraystay waxa la wixii loogu ciidil qabayna waa la weydiiyey iyana waa ka jawaabeen kolley intii karaankooda ahayd marka wasiirku kolley si wanaagsan
oo ballanqaad fiican leh oo mas'uuliyadda ku jirto ayuu uga hadlay su'aalihii la weydiiyey ama uga jawaabay waxaana uu codsaday in waqti la siiyo ku filan isagoo sheegay in waqtigii hore uu ku filaan waayey oo meel ay wax ka kordhiyaan ay garan waayeen marka wasiirku codsigu waa ku celceliyey in waqti ku filan la siiyo si dalka ay ugu keenaan miisaaniyad anfacada oo ku filan anigu waxaan qabaa codsigaas horta baarlamaanku inuu horta uu tixgeliyo oo loo tixgeliyo wasiirka oo waqti la siiyo si berri loola xisaabtamo oo berri waxa uu keeno waa lagu xisaabtami karaa waxaan aaminsanahay haddii aynu waqtiga aynu siino waa 6 bilood baan malaynayaa oo maanta bishan ay ku jirto waxaan qabaa 6 bilood haddii aynu siino inay keenayaan wax dadka iyo dalka anfacaya oo ka turjumaya marka waxaan qabaa horta in codsiga horta wasaaradda aynu tixgelinno berri ka maalin si loola xisaabtamo oo aan looga yeelin wax dambe ayaanu qaban kari weynay waxaan arki jiray xildhibaanada kale oo ku taageera shalay halkan markii aan wax ka hadalay guux badan baa dhawaaqay gobol u dhaado hadlaysaa xildhibaanada gaalkacay laga soo doorto hadday gaalkacay u hadlaan oo dhan col baa haysta ama bahal baa haysta taageeray mudan yihiin kuwa barina taageeray mudan yihiin kuwa nugaalona taageeray mudan yihiin sidaa aad arki jirteen oo arkaysaa markii dagaal ka socday meesha gaalkacaya waa loo sameeyey annagaana ku taageerayna annagaana u ololaynayna meeshii horumar u baahan oo ama erboodo ama amni hoose iyadana waa ku taageerayna oo xildhibaanadu gobolkaas ka soo jeedaa ay soo dhigaan shalayto markii aan soo dhigay gobolka sool oo aanu miisaaniyadda ugu jirto sida sharcidarrada looga saaray ha lagu soo celiyo xildhibaano badan oo saaxiibada ayaa taageeraan ka sugayay laakiin taageero darro waxay muujiyeen inay idhaahdaan maxaad ka hadlaysaa gobol u dhahdo hadlaysaa marka haddii berito jidka laga samaynayo taageero looga baahdo oo la yidhaahdo baarlamaanka miisaanada loogu sameeyo waxaa loogu daro si jidkaas u dhaqaaqo dee haddaan ka hor imaado waa xeer cusuboo hadda baarlamaankan cusub aan ku aragnay weeyaan marka waxaa weeye taas waxaan ka codsanayaa xildhibaanada ninku meeshuu ka yimid hadduu dhib ka sheego lacagtaa xildhibaanadii horaa ku daray iyagoo gobol walba leh oo ku dagaalamay waxaanan arkayey rag badan oo aad iyo aad uga xanaaqay baan arkayay anigu waxaan u galay miisaaniyadda kolley hadda raggan waa diyaargaraysan yahay waana ansixinayaa markii horena iyagaa yidhi miisaaniyaddu sharciga ma waafaqsana iminkana iyagaa leh mar haddii wasiirku ballan qaaday wasiirkii wuxuu qabtay daawalba isaga wax soo qabtay haddana isagaa ballan qaaday ama khalad buu keeni ama sax buu keeni laakiin waxaan leeyahay xildhibaanadu iyagu iyo isla doodi marka ay tanoo kale ay taallo oo iyagu iskaga hor imanin wax dalka loo qabanaya ama horumar ha ahaato ama amni ha ahaato ama difaac ha ahaato anigu intaasaan leeyahay saaga ha la ansixiyo iyo yaa la ansixin midna odhamaya waayo waa arkaayo waa ansixinaysaan oo soo diyaargarowdeen waa saasaan idin leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu oo doonaya inuu maanta wax saxo aynuna ku rajoweynahay aragtideeda in wax saxo inaynu ku taageerno waxsixidda mar walbana xisaabtanka iyo garabtaagnaanta iyo wixii qaldan inaynu qabanno aynu la dhinac taagnaano miisaaniyadda aynu maanta sidaa ku qaadanno waxyaabaha qaldan ee hadda wasaaradda loo tirinayona sidii loo sixi lahaa inaynu ka shaqayno oo ka daba tagno sida xaajigu sheegay dee xilligay habboonaato wax walba marka ay yimaadaan miiska qoran iyadoo xildhibaanada deegaanada ay puntland oo dhan matalaan haddana xildhibaanka deegaan iyo dee soonku ka soo jeedaa uu caqabadiisa iyo baahidiisa keeni karo anu degmada aan ka imaado ama gobolkan ka imaado haddaan maanta qiimadhaanka keeno waxaan xaq u leeyahay dee baarlamaanka inuu garab istaago laakiin xildhibaanka saaxiibka ee garab fadhiya inuu yidhaahdo anna xaggan kama adqaynay maxaad xagga uga qaylaysa
taas waa la qabaa xaaji oo maaragtay dee wixii baahi u yimaado in la xaqiijiyo inay jirto u baahan saxa laakiin in si kale loo turjunto ma aha dalkuna waa isku mid dadkuna waa isku mid qof walbana baahidu meel ka og yahay aad iyo aad u mahadsantahay marka waxaa leeyahay ansixinta miisaaniyadda lana xisaabtana dowladda waa mahadsantahay in la raaciyo nifaaq kow in miisaanada loogu dhaqmo sidii loo ansixiyey oo aanu jirin madax looga bedeli karo labo in haadihii loo ansixiyey curaarihii hore oo baarlamaan hore oo ansixiyeen oo la yidhi hala siiyo sidii loogu ansixiyey loo siiyo in wasaaraddu keento miisaaniyad dhaba oo dalku leeyahay haddii lahaydno tanna aynu maanta sii dayno oo la ansixiyo kole xildhibaanadii iga horreeyay dhammaantood siday muuqata waxay leeyihiin hala sii daayo miisaaniyadda waana ku raacsanahay anigu maadaaba maanta inuu ku dambayso inaynu wakhtigaynu haysannay si aanu dalku karays kale u gelin haddee wixii la isweydiiyo wixii lagu ballamay wasaaraddu ballanqaad bay samaysay innaguna haddii lahaydnu ballanqaadkeeda samaysay aynuna kula xisaabtanno kulana shaqayno miisaaniyaddana ha la sii daayo si dalku uga baxo miisaaniyad la'aan oo miisaaniyad u helo marka anigu waxaan ku soo koobayaa anigu ra'yigayga in la sii daayo miisaaniyaddaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu arrinta kalena waa xanta guddiga sida uu sheegay mudanaha saaxiibka isku deegaan baan nahay oo geela iyo riyaal dhaqanaayo dumar geeliga iga hormaro inaanu wixii aan maaragtay u sheegaa waxaa la yidhi nin ayaa wuxuu suuqa keenay rig madiiho ama caano badan ku soo iibgeeyey ridu marka way sunugtaa wuxuu ku talagalay marka markuu magaalada keeno in ridaas candida weyn loo daasawa weyn loo qof kasta is leeyahay ridan adiga ku dhaafino caanaha badan loo keeno soo kaxeeyey soo ag fadhiista qof walba u yimaada anaa garanayo yidhahdaayeesu marka riduna intii dadka ula hadlaayo naasay afka la aadaayo ushu kaga dhuftaayo waa ka celiyaa sidaysan dadku ogaan inay sugurto marka isagaas la hadla wuxuu yihi carab ridaas inta la iibsanaya isluugistaa iska dayso marka qolyaha waxaanaya waxaan leeyahay inta badan wax la saxay oo aynu isu keenayno wixii aynu rabnay aynoo hagaagayaan oo waxa lala imaanaya la keenayo bal aynu xanta iska dayn oo wixii la keenana aragno shaqada guddiga iyo sida ay u shaqeeyaan aynu ogaano taas kale yahay xantu runtii waa wax walba qofka annagu hadda cidna waxma haysano cafis banaa laakiin walaa yakta bacdakum bacda an yuxibu axadakum an yakuna laxma akhiihi maytan fakartani waxaa rabaa qofku marka inuu ogaado qofka uu xamanayo waxa uu ku xamanayo wax saxa miyaa mise waa wax khalada way noola muuqataa in wax la saxo qof kale waxbaan saxayaa waqti la siiyo waqtiga la siiyeyna haddii wixii ballan ahaayu qaaday uu ka soo bixi waayo markaas ka bacdi si waadaxa oo furan oo aan cudurdaar lahayn oo meel ku noqdaysan jirin loola xisaabtamo laakiin qofku in waqti la siiyo oo wax 20 sano soo khaldanaa hadduu yidhaahdo anugu 5 bilood baan ku soo saxaya annagu aan idhaahna yeelin in bixi la kala ayagoo saxa waxaan jeeday arrintaasi saxinaysan ahayn guddiguna arrinta uu golaha u keenay dee golahu soo dhigay golaha iskale wax diidada iyo waxyeelidda wayna dareemeen oo sidii guddigu u sheegay golahu ola qaatay wasaaraddu ola timi aad iyo aad waxaan u mahadcelinaa fikradaas inay fikrad fiican lahayn aaraadaasina aad moodid maaragtay inay inoo najici doonto insha allah waxyaalo badan oo isbedel ah oo dhinaca maaragtay guddigu u diyaarsan ay rabaan inay wax ka qabtaan oo dhinaca dhaqaalaha baa jiro ay rabaan inay maaragtay haddii rabeen soo gudbiyaan wasaaradda maaliyadda ayadana waa inoo wadaagi doonaa marka ayna ka degdeginina waxaan jeedaya xantuna inay dhammaan doonto waxqabadka iyo wanaagana uu noo soo socdo aynu arki doonaa aad iyo aad baa mahadsantihiin aan saxno wixii ay ku saxsan tahay inaan ku taageerno
waxyaalaha hadda aniga aan filayo oo wasiirkuna shalay noo sheegay waxay ahayd in hadda January iyo February iyo March ay lacag badan isdhintay sanadkii markaan lacagta ku dhuftay waxay noqotay lacag 40 milyan iyo abaf ah lacagtaasi anigu waxaan qabaa in guddida dhaqaalaha oo inaga maartay aan u wakiilanay shaqadaas inay la wadaagaan inaan marka aynu nimaadno isla xisaabtanka ama ansixinta miisaaniyadda dambe aynaan isugu iman isdhin lacageed oo 40 milyan iyo ka badan ah oo inaan tamar u haynin waxaan qabnaa inaga guddida shaqada aan u dirsanay waxa weeyaan waddanku laba meelood buu ka qasan yahay taas shak kuma jiro waddanku wuxuu ka qasan yahay amniga iyo maaliyadda labadan guddi ee midna amniga uu yahay midna maaliyadda uu yahay waxa la rabaa shaqo dheeraad inay qabtaan guddida maaliyadda haddii la maaragtay taataabtana Soomaalidu waxay tiraahdaa faraska jeedalka waxaa loogu dhuftaa shaqada sii kordhiyo waa meesha ugu xasaasisan waa meesha waddanku ka waashay miisaaniyaddii meher gasho baa la yiraahdaa ciddii lahayd maysan gaadhin baa la yiraahdaa waxbaa isdhimay waxaasoo dhan horta waa inaan fahanaa aniga arrintan fahmi lahay waxa weeyaan qorshe waxaa loo sameeyaa in lagu dhaqmo haddii kale maxaaba loo samaynayaaba miisaaniyad waxaa loo sameeyaa oo loo ansixiya in lagu dhaqmo haddaan lagu dhaqmin dee maxaaba loo ansixinaya loo dejinaya meesha hal shay unba aniga shalay iga muuqday waxa weeyaan wasiirka oo waracnimo muujiyey iyo hufnaan iyo inuu bannaanka wax walba soo dhigayo laakiin haddana waxaan ognahay Puntland wasaaradaheeda waxaa jira oo aan qarsoonayn in tiimamka wasaaradda fadhiya ay yihiin tiimam fadhiya 20kii sano ee Puntland ay jirtay laba mid bay noqonaysaa marka wasiirka wasaaradaha dhamma sheegay anigu wasiirku inuu tiimka isu dhiibo iyo inuu tiimka dilo waxba kama dhaxayaan waxa ma saxmi karaan anuu saan qabo way inuu tiimka wasaaradaha 20ka sano soo fadhiyay oo wax kastana ay halkoodii jugjug meeshaada joogay tahay in wax laga qabto waxaan wasiirka marka anigu ku dhiirigelinayaa runtii oo media u marinayaa iyo in haddaan arkaba in wasiirku wasaaradda maaliyadda ee uu madaxda ka yahay uu to z waxyaalaha ka dhex jira ee 20ka sano isna u warhayo oo dalka u joogay in wax ka qabto haddii wax ka qaban waayo muddo dhow halka noogu iman doonaa wuxuuna oran doonaa wixii jugjug meeshaada joog weey dhaqaali waa isdhimay waxa ma soconayaan taasna waddanku ma socon karo waxaan kaloo rabaa inaan raaciyo Jamaal iyo raggiisa tiimka amniga waddanka ciidamada ka jira ee amniga ah waxaan rabnaa inay noqdaan wax la taaban karo haddii kale aad u soo gudbisaan golaha inaanay jirin waddanku difaac buu u baahan yahay hadda roonda la sheegaa waxa roonda lacag loo qaado waxyaalaha shalay aan arkayo weey war xildhibaano roonda ma aragtaa waddanka waa dhex martaan roonda ma aragtaa ma garanayno meel roonda joogto waxaan rabnaa waxyaalaha wadooyin baa la yiraahdaa baa la sameeynaya oo lacag lagu bixiya wadooyinkii roob baa jaray iyo daadad baa jaray khatareen ku jirnaa markaan laabiga marayno waxaan rabnaa ummadan ilaahay inaan uga baqno waxyaalaan ka yaabana waxa weeyaan innaga beena cashiyatu waduxaa baan isku bedelnaa odayga Abu Jahl wuxuu yiri al-amru qad qudiya bil-layl markuu maalintoona wax la wado aroortii waxa la soo kacayaa barnaamijkii 100% 90 digri xagasha la wadaarsiiyay waa sax miisaaniyadu waan sixinaynaa laakiin waxaan ku dhiirigelinayaa guddida amniga iyo guddida maartay maaliyaddaba inay shaqo haad ah qabtaan oo waddanka dawladdu ay rabto hadda inay wax ka saxdo ay qayb ka noqdaan arrinta labaad oo shalay wasiirku sheegay oo baarlamaanka taabanaysa waxa ka mid ahayd inuu yiri idinku ha noola imanina wax ka baxsan waxa aan tirada ansixiya macna inagii hadaynu ku milanno wasaaradihii iyo maaliyadda iyo meelaha kale dhibaato dhacaysa waxa ka mid ahayd inaan niraahno inagu waxaas gobolka loogu daro ama waxa maartay shaqada noocaas la qabto oo miisaaniyada aan ku jirin inaga lafteena waxay noqonaynaa interfere baynu noqonaynaa aan isufno aan warac noqono ummadda aan u shaqayno okay waad mahadsantihiin waxaan kaloo golaha sharafta la ka codsanayaa in mar kasta waxyaalaha gobolada ku jira si equal looga hadlo hadda shal wasiirku wuxuu noo sheegay gobolada markuu ku dhawaaqayay ma hubo buu yiri gobolka Sanaag inay ku jirto goboladu waa isku wada mid
haddana gobolku qofku uu matalo dhibaatooyinka ka jira wuu soo gudbinayaa ha lagu taageero hana lala shaqeeyo waadna mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله أرنتيدا waxaan kaga hadli doonaa saddex arrimood mid waxa weeye guddiga guud iyo guddiga maaliyadda midna waxa weeye arrintan miisaaniyadda midna waxa weeye arrinta gobolka Sool saddexdaas oo odayga xaajiga ka dhawaajiyaan doonaya inaan midba wax ka yiraahdo horta miisaaniyadda dowlad waliba waxay dhaxli jidhay sanadka u horeeya dowladda ka horeysay waxay ka dhaxli jidhay miisaaniyadda lagu shaqeynayo 2009 dowladdii timi madaxweyne Cabdiraxmaan Faroole ka ahaa 2008 baa la ansixiyay miisaaniyaddii lagu shaqeynayay 2009 miisaaniyaddii lagu shaqeynayay 2014 waxaa la ansixiyay 2013 kalfadhigii u dambeeyay baana lagu ansixiyay tani dhaxalkeedii bay weyday 2019 waxay ahayd in la ansixiyo 2018 miisaaniyadda 2019 oo dowladdii hore iyo baarlamaanka ayaa arrintaa ka gaabiyey waxayna ahayd dowlad dhaxalkeedii weyday aniga waxay la tahay automatical bay waxay ku noqonaysaa dalku miisaaniyad ma la'aan karo in miisaaniyaddii hore lagu shaqeeyo innagu markii dambena waxaynu ka galnay inaan 3 bilood siino 3 bilood ma ahayn wax aan shuruuc u marnay masaalax bay ahayd in laga maarmi waayay ahayd haddana weli kama ay tanaasulin inaynu masaalixdii aan wax ku wadno waxaan u arkaa in automatical ba inay u ahayd in lagu shaqeeyo dalku miisaaniyad la'aan karin haddana miisaaniyad la diyaarin miisaaniyaddii hore waxaana leeyahay miisaaniyadda waa inaynu ansixinno waxa ka culays badan dalku weligii miisaaniyad buu lahaayay miisaaniyadda inaan lagu shaqayn jirin baa ka culays badan awoodda waxaan leeyahay aan saarno in miisaaniyadda lagu shaqeeyo aan ku dabagalno isla xisaabtan uu yimaado waa ogtiin golahu saaxiibtinimo kuma shaqeeyo gurub kuma shaqeeyo jacayl qof kuma shaqeeyo wuxuu ka shaqeeyaa cod dheeri buu ku shaqeeyaa oo lagu kala baxaa waxaan leeyahay arrintaas aynu dabagalno waddankuma miisaaniyad la'aan jirine in lagu shaqeeyo la'aan jiray miisaaniyaddana ha la ansixiyo baan leeyahay guddiga guud dhammaantii guddiyada waxaa laga rabaa inay shaqooyinkooda qabsadaan guud ahaan gaar ahaan meelaha hadda wax ka jiraan waa guddiga maaliyadda anigu waxaan u arkaa guddigaasi inuu shaqeeyey arrintii maalintii dhoweydna ay ahayd ceel biirah ninkii ka soo baxay baa laga waraystaayo qodobadii 10 ay ahaayeen qodobo wada khatara oo dhaliil miirana 5 qodobna ay ahayd 5 qodob ay tala bixin ka bixiyeen 4 qodobna ay tixgelin siiyeen oo codsigii dowladda sidii codsigii hore miisaaniyadda aynu u aqbalnay inay mar labaad codsadeen taasna waxay ahayd wax aqoon iyo dadnimo iyo tallaabo saxa ku saabsanayd waan uga mahad celinayaa guddiga laakiin guddiga waxaa la rabaa shaqadiisa inuu dardar geliyo si isla xisaabtanku u yimaado xogna looga helo guddiga amnigu dee waynu isla ognahay meeshuu marahayo waxaa la rabaa iyaguna inay shaqeeyaan si guudna loo wada shaqeeyo waxaan u gudbayaa gobolka Sool iyo xaaladdiisa gobolka Sool naf iyo maal wixii Puntland lahayd shacab iyo dowladba tukaraq buu yaallaa oo halkaasuu ku wajahan yahay naf iyo maalba waxaan u aragnaa inaan wax laga hagran wax kasta oo ay tabanayaanna waxaan u arkaa in la garab istaago mudanaha yidhi baarlamaanku waa isgarab istaagi jiray waa ku garab taagannahay waxaan kugu garab taagannahay gobol ka mida gobollada hadday ka jiraan xaalad cusub inaan garab istaagno taasna waytaan kugu garab istaagaynaa laakiin waxaad tidhi waan arkaa in la ansixinayee horta garab istaagga adigu bilow xaaji oo waxa weeye garab istaagga adigu bilow annaguna waa ku garab istaagannahay xuquuq kasta oo gobol kastaa tabanayana waa ku garab istaagaynaa si guudna waa insha allah waa loo maarayn doonaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu markii wasaaradda iyo xogtii guddiga dhaqaalaha iyo xogahaas oo
waxaan dadba jirto miisaaniyada layaaba ansixin waxaan filayaa dowladdeedu marna la hori jiray markii hore ee guddigu loo keeneen dhaqaalaha lagu saareen iyada gacmahooda lama qaban iyada waxaan qabaa in laga soo saaro saddex waxaa jira dakhliyo loo qabto hay-ada gaar ah biyaha iyo korontada puntland waxaan jeclahay mudanayaasha maadaama waqti badan jooga inaan intaas fursad ay siiyo inaan waxyaalaha soo inaan yaga sharxo biyaha iyo korontada puntland hay-ada baasawooyin dakhliga qaadaa miisaaniyaddeeda lama keeno maxay ku qabataa maxay biyaha u qabataa dadka maxay koronto ku wurisaa maxay energy qabataa waa in cashuurta dadka laga qaado meeshay gasho ah oo shiinka dadka laga qaadayo badelkiisa dadka way arki karaa waxaanu samaynay banki 2099 baa bankiga lacag loo sameeyey 4% 5% laba sano qaadabay jarkiisa waa ilaa hadda wuu socda bankiga waxaa lagu talagalay miisaaniyadda inuu caawiyo oo xilliga ay isdhinku yimaado in bankigu lacagta sii jidiyo kadibna maaliyadda ku celiyo da inuu kaydi yeesho bankiga miisaaniyadiisa lama hayo hay-adda jidadka ee meesha jidadkay qaabisan tahay waxaa lagu talagalay dakhli qaybna shaqo socodsiinteeda qaybna jidadkayna ku dayactirto ma heshaa ma ku dayactirtaa dakhligeedii si nadiifa loo maamulo miisaaniyadahaas oo dhan waxay ahayd inay miisaaniyada ku lifaaqan yihiin caasimadda lacag baa horumarinteeda ugu jirta aanuansi 2.5% waxay ku jirta gobolka bari midland gobolka nuug bay ugu jirta waxaan ansixinay jidka ceedaahada ceeriga miisaaniyadda ku jira may horta waxaan u baahannahay mudanayaa annagu daafurnaan baa rabnaa ilaahay hortiis annagoo aan inan cidna u jeedin kitaabkan waxaa ku maray inagoo eega xeerinana qofna masaaxiibnimo ka dalbay qofna colaadin uga jeedin waxaana noo soo doortay waa sixiskii ku dhowna baa kaga baxay miisaaniyadda ha la celiyo ha la joojiyo ha la diido ha laysoo taago meesha mala qabato laakiin waxa weeye maxaa baarlamaan naga shaqadeena ah oo sixisa miisaaniyadaha aan sheegay oo dhan hay-adahooda way cabanayaan lacagtaas naga soo gaadhaynayiin hadday qaadaan xaq ugu qaada sida qodobka dastuurka 135 uu sheegayo miisaaniyadda guud ee dalka waa inay ku lifaaqan yihiin dhammaan hay-adaha cid kasta oo dakhli umadeed qaata iyo waxay ku qabato annagu marka waxa wey mudanayaal xeerarka shacabka canshuuraha laga qaada oo ku waajibinaya annagaa samayna waxay xaq noogu leeyihiin inaan dadkaa shilinkooda adeega loogu bedelayo inaan dalbado oo raadino oo ilaalino oo ku socdo horta mudanka adiga dooda saas u jeeda xagga gobolada waxaa u yartaa gobol aan horumarin miisaaniyadda loo dhiibi ma jiro airport wasafka sameeyey 5% oo loo waasiiyey waxaan kaga baxaya loo gudoomiye haddii miisaaniyadda hooliga wadayaalada wax soo jeeday in la ansixiyo inaan raacino go-aamo miisaaniyadda tooskeeda anaa noqon wixii horta dastuurka iyo qawaaninta ku reeban inaan ka soo saaro dakhli aan sharci ahayn oo golayaasha dowladdu marin oo ummadda aan u adeegay ee si qaldan maamulku soo dhacayo inaan qaraar baarlamaan ka soo saaro waxaan isleeyahay ilaahay bay ugu dhawaanaysa taas waa qodobka labaad hay-adaha dowladda ee golayaashu si sharciya u jideeyeen culaalaha ay qaadaan iyo adeega fulinta loogu talagalay iyagana inaynu siday u gudbiyo oo loo siiyo wasaaradda xoogaa say dooshiiso madaxyada dakhliga iyo kuwa kharashka ee dowladdu inay siday dastuurku qaba ay dakhligu u aado madaxyada kharashka inuu u aado xaq umada wasaaradda maaliyadda madax kharash oo hay-adi leedahay intay ka saarto in lagu bixiyo waxa aqo iyadana aynu qodobka ka soo saarno anuna kala miisaanada ku dhalanteeda aynu waajibino aad iyo aad baa mahadsantihiin aan iska sii dayno mudanayaal waddadii aynu isku maagaday ku socota aad
بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم aad iyo aad bay u mahadsan yihiin mudanayaashu dooddoodii quruxda badnayd ee ay kaga doodayeen miisaaniyaddii oo aynu soo wadnay 10kii cisho u dambeeyey hawsheeda iyo shaqadeeda maantana ay tahay maalinkii u dambeeyey aad baad ugu mahadsan tihiin doodda hufan ee quruxda badan ee aad ka doodeen waxaan rabaa marka intaanan cod gelinin dhowr mulaaxadoo yaryar bal inaan yar taabto mulaaxadada koowaad waxay tahay mudanaa wuxuu yidhi saaka waxaan ka rabnaa guddoomiyaha lacagta miisaaniyadda noogu jirta mudanaa waxaan leeyahay mudanaa adoo mahadsan hawshaas anigu malihiin maamulku galuhu leeyahay iyo admin and finance iyaga ayaad insha allahu u tegi doontaa ayaadna weydiin doontaa wixii faahfaahin aad uga baahan tahay intaas iyada because iyagaa shaqadoodii weeye iyagaa u xilsaaran taas intaasaan ka baxay tan shaqaalaha waad ka hadashay shaqaaluhu waa sax laakiin iyada laftigeeda waxa weeye waa shaqo wasaaradeed waa shaqo xukuumadeed iyadaa xaq loogu leeyahay inay reform soo dirto oo ay baadho shaqaalaha maxaa saxa maxaa khaldan taana iyagaa laga rabaa laakiin marka la leeyahay 100 iyo xoogaa golaha baarlamaanka u shaqeeya baarlamaanku waa institution weyn saddex institution jira institutionka ugu weyn waxaa ku jira maca ciidankiisii weyn marka la leeyahay maca ciidanku waa ku jira laakiin iyada laftigooda waa arrin khusaysa xoogayaha iyo agaasimaha maamulka iyada laftigooda iyagaad kala xidhiidhaysaa ama wixii khaldan oo ku jira xukuumadday u taallaa hadday jirto iyadaa guddi reform soo dirayso oo laga rabaa inay saxdo taa intaasaan kaga tegayaa arrinta aynu ku jiray oo hadalkeedu bato miisaaniyadda iyo khaladaadka la sheegayo waa sax innaga baarlamaan waa sixitaankiisa asalna waxaa ka haddaynu daacad ka nahay waa saxmaya wasaaraddiina shalay wataynu dhegeysanayna waxay tihi waanu saxaynaa ballanqaad baynu samaysa inaynu halkaas kala jaan qaadnaa muhiima waxaa kaloo muhiima waan baarlamaanka usoo jeedinayaa baarlamaanku waa guddiyo guddi walba shaqo u gaara bay leedahay ama wasaarado ka mida xukuumadda ayay le minister la tahay ma aha guddida dhaqaalaha iyo guddida amniga keliya in laga hadlo guddi walba waxaan ka rabnaa oo loo xilsaaray oo ay u xilsaaran tahay inay shaqayso oo shaqo joogta qabato waxay u xilsaaran tahay inay wasaaradaha ay la shaqayso iyo hay-aadka ay la shaqayso ay mar walba u tagto oo kor joogtayso ma aha in baarlamaanku markuu fadhiyo keliya laga hadlo inay si dhow la socdaan rabuud bay xaq ugu leeyihiin su-aalay xaq ugu leeyihiin inay u yeedhaan bay xaq ugu leeyihiin inay u tagaan oo wixii khaldan ay faraha iskula taabtaan bay xaq u leeyihiin waxaa la rabaa in la shaqeeyo aan laakiin guddiyadu magac noqonin magac inaanay noqonin mas-uuliyaddaasi cidday saaran tahayna waxa weeye waa guddoomiyaha guddida kana mida guddiga joogtada laakiin waa mas-uuliyad wadareed guddidoo dhan saaran waxaa la rabaa guddiyadu inay si toosa u shaqeeyaan arrintaa waa ku celcelinayaan taas ayuunbaa isbeddel ku imaan karaa wasaaraddii ama hay-addii la shaqayn weyda oo iyadu ay arrintaasi ka suurto geli weydo waxaan ka codsanaynaa guddidu inay u soo gudbiso golaha wakiilada tallaabaa laga qaadayaa dastuuri ah waayo shaqada guddidu waa dastuuri laakiin hadday shaqayn waayaanoo meelahan ay iyagu dee aanay shaqo qabanin ama xilliga baarlamaanku fadhiisanayo ay warbixina raadiyaan oo waraaqo loo soo daawacay ay soo qaadaan waxa weeye waa mas-uuliyaddoodii bay gabeen wax saxana maaha waana lagula xisaabtamaya aakhiro iyo adduun labadaba waxaan ka codsanayaa guddiyadu inay si toosa u shaqeeyaan waxaan ka codsanayaa shaqadoodu mar walba way taagan tahay inay qabtaan waxaan ka codsanayaa xataa shaqooyinka ay qabanayaan hay-adaha xukuumaddu ama wasaaraduhu inay wax ka ogaadaan oo ay wasaaradaha u tagaan oo yidhahdaan shaqooyinka aad ka qabanaysaan degmooyinka iyo gobollada waa inaan ognahay because waa shaqadooda ama qoraal ha u qoreen ama ha u tageen xaq waxay gu leeyihin qoraal inay qoraan yadaan waa inaanu wax ka ognahay dhaqdhaqaaqyada iyo activitka si aad ula jaan qaadaan oo aad u ogaataan oo xog walba aad u heshaan ama meelaha wax laga qabanayo aad gobjoog ku ahaataan oo xildhibaanku iyo shacabkiisuna u arko xildhibaankuna dina shaqo u hayo
laakiin meel walba in wasaaradda ama xukuumaddu taagnaato baarlamaankiina laga dhigo waxaan shaqaynay ama dee maxay ideenay aan waxba la ogeysiinay waa mas-uuliyadda inagu leenahay guddi walbana waxaa laga rabaa wasaaradaha iyo hay-aadka la shaqeeya culays inay ku saarto dhaqdhaqaaq kasta oo ay qabanayaan iyo wax kastoo activity ay qabanayaan inay la socdaan oo ogaadaan haddii kale guddigaa gabay shaqadooda ciddii u hoggaansami weyda shaqada oo hay-ad ama wasaarad ah waxaan ka codsanaynaa inay soo gudbiyaan waan sheegay tallaabaa laga qaadi doonaa golaha tallaaba qaaday intaas waxaa weeye waa shaqada aynu leenahay oo guddiyada waxaan kaloo aan rabaa inaan si gaara u taabto guddida dhaqaalaha iyo guddida amniga waxaa gaarka loogu taabanayaa mas-uuliyad gaara oo hadda iyadu taagan oo qaa'ima baa saaran waayo waa labada meelood aan hadda ka jilicsannahay waa dhanka amniga iyo dhanka maaliyadda shaqa mas-uuliyad gaaraa sii saaran waxaan ka rabnaa weliba guddida dhaqaalaha inay si toos ah ula shaqayso wasaaradda iyo meel kastoo dhaqaale ka soo baxo hay-ada wasaarad ama hay-ada waxaan ka rabnaa inay iyadu soo ogaato wax kasta oo khaldan ma aha inaynu inagu hadda miisaaniyadda xataa dhexdeeda ka baadhaano waa inay guddidu ogaataa wax kasta oo khaldan waa inay guddidu ogaataa hay-ad kasta oo aan qaada lacag aan sharci ahayn ama dakhli aan sharci ahayn oo aan marin baarlamaanka waa inay ogaataa dakhliyadaasi sida loo qaado barsenteejyada xataa waxaan ognahay wasaaraddu dakhliyada ay qaadaan isku barsenteejka ma aha qoloba waxbay goosataa cidu sharcigaysana la garan maayo iyagii laftigoodii xataa wax ikwaloo siman maaha mid baa 5% qaata dakhliga uu soo saaro mid baa 2 qaata mid baa 15 qaata mid baa 20 qaata waxyaabahaas oo dhan waxaa laga rabaa guddida dhaqaalaha laga doonaya anagu si dhow aan la shaqaynaynaa haddii ilaahay idin ka dhigo laakiin waxaa la rabaa wax kasta oo dakhli oo la qaado haddaanu sharci ahayn iyo hadduu sharci yahay oo waddo khaldan marayaba iyagu inay soo gudbiyaan baarlamaanka soo gudbiyaan baarlamaankuna markaa go-aan ka gaaro iyagana xilkaasaa gaaro saaran guddida amnigu sidoo kale dalka amnigiisu waad ogtihiin hadda waxaa weeye wuu laadlaadaa waxaan rabnaa iyaga laftigooda insha allahu inay hay-aadka amniga si dhow ay ula shaqeeyaan oo waxa weeye iyaga laftigoodu ay ogaadaan meel kastoo wax ka jiraan iyo meel kastoo wax ka jiro golahana ay la wadaagaan wixii taageerahana goluhu waa isla garab taagayaa waayo wax kastoo aynu hayno ama horumar ama dhaqaale xataa lagama hadli karo haddii aanu jirin amni bikaas qofku hadduu dee nabada aanu haysan muxuuba ka fekeri karaa xataa cibaado kama fekeri karo iska daa wax kaloo marka waxaan leeyahay xil weyn aan isa saaro mas-uuliyad aan isa saaro nimayo xilkasnimadu waa shay qaali ah qof kastoo baarlamaanihii inuu xilkas noqdo mas-uuliyad dareemo wixii jira ama wixii mas-uuliyad uu saaran isaga oo la gaar loo saaray uu guto intaa markaan ka gudbo waxaan insha allahu halkan aynu hadda kaga doodnay miisaaniyaddii waxa goluhu uu miisaaniyadda minidku waxa weeye wuxuu u dhacay doodu 2 qaybood oo kala ah dhinac way iskaga mid bay ka yihiin laakiin farqi baa u dhexeeya qolo waxay tiri in la sii daayo miisaaniyadda waxna kuma xidhin minidku saasuu ahaa qolada qolana minidkoodu wuxuu ahaa in miisaaniyadda la sii daayo laakiin la raaciyo qoraal waxyaabaha aynu tabanayno khaldan si loo soco marka waxaan qabaa anigu miisaaniyadda fakarkayga markaan dhiibto minidka intaana gelin inaynu qaadanno oo codkana aan ku hormariyo in la raaciyo qoraal sixitaan ah meelaha aynu tabanayno oo ay ugu horrayso kow qaybaha dastuuriga oo ah in wasaaradda maaliyaddu ay maxay ahaydeen soo raaciyaan miisaaniyadday soo gudbinayaan lifaaqa hay-adaha maxay ahaydeen dakhliga qaata inay soo raaciyaan lifaaq miisaaniyadda ku lifaaqan si loo ogaado waxay qaataan siday u qaataan iyo soo kharash karayaan waxaan kaloo qabaa in lagu daro qodob ah in wasaaraddu aanay madaxyada miisaaniyadda madax loo rari karin ilaa ay helaan ogolaasho baarlamaanka mooyaane way dhici kartaa duruufi way iman kartaa loo baahdaa madax kharash ku jira oo madaxii laga saari lahaa maran yahay laakiin waa duruufi hadday keento waa inay soo ogeysiiyaan baarlamaanku lana ogyahay baarlamaanku guddida dhaqaalaha u soo gudbiyaan
guddida dhaqaaluhu marka ay u soo gudbisaa baarlamaanka qodobka saddexaad oo iyadana aan ku darayaa wuxuu yahay in ay wasaaradda iyo guddida dhaqaaluhu wadaagaan hay-ad kasta oo qaada dakhli aan sharci ahayn baarlamaankuna aanu ansixin waayo waxa xalaaleeya cashuur in la qaado waa golaha wakiiladu hay-ad kasta oo dakhli qaada waa inay wadaagaan guddida dhaqaalaha iyo wasaaraddu oo la soo gudbiya hay-ad kasta oo qaada dakhli aan sharci ahayn saddexdaa qodob baan qabaa anugu in lagu daro miisaaniyaddan aynu sii dayno aynu qaadano qodobkaa in la raaciyo lifaaqaas ama tabashooyinka marka insha allahu cod baynu gelinaynaa mudanayaasha dhaafay arrintii hadda aan ka hadlayay oo ahayd hay-aadka dakhliyada qaada ama wasaaradaha percentage siman ma qaataan qoloba waxbay qaadataa qodobka afraad aan raacinayna wuxuu yahay difaaqa in la mideeyo percentageka laftigiisa in la mideeyo percentagekaas oo uu noqdo maxay haydeen mid hadday jirto hay-aadku ama duruufaha ay kala duwan yihiinna justification macquul ah la keeno oo guddida loo soo gudbiyo dhaqaalaha marka mudane waa dhammaaday warkii cod baynu gelinaynaa insha allahu marka hadda waxaan gelaynaa codkii qodobkii ciidanka miya waa sax ciidanka in uu la waafajiyo oo ay wasaaraddu waafajiso afarta ciidan ee ku qoran dastuurka dowladda puntland laakiin aanu jirin ciidan shanaad ama ka gaaro meel gaara ku yaalla shantaa qodob baynu raacinaynaa haddii alla yidhaahdo marka waxa weeye codkaynu gelaynaa xildhibaanadu insha allah codkaa u diyaar garoobeen yaa qaba in la sii daayo miisaaniyadda iyadoo la raacinayo lifaaq aynu ku xusi doonno qodobadii hadda aynu ka hadlaynay soddon iyo siddeed mudane ayaa u codeeyey qodobka kalena sii daynun buu ahaa kaasun bay isku mid noqonayaan ma aha wax khilaafsan sidaa laagsigeed uma baahnayn inaan wax coda u qaadno ko isaguna sii dayn baa kale waxay u kala duwanaayeen in farka marka waxaan ku celinayaa yaa ka aamusay hal mudane yaa diidan ma jirto waxaan qirayaa inay ku ansaxday miisaaniyaddii dalku sidaas xalaal iyo xaqna ay ku tahay lana isticmaali karo ay wasaaraddu iyo dalkuba isticmaali karaan dalkuna uu leeyahay berri oo kowda abril ah miisaaniyad insha allahu uu ku dhaqmi doono 9 bilood ee soo socota waana mahadsantihiin mudanayaal intaa waxay noo weeliyaan shirkeennu wuu xidhan yahay xilligii dastuuriga ahaa ayuun baynu isu iman doonaa haddii allaha waqti ogolaado waana mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu